Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Chuba Institute of Professionals. We're in English Phrases Lesson 3 أو 10 كصدحات فرنسك وآدي أدب مهم ويهم أيقول دقيقة وادي صدر دونا أهمية أيلين وحكم إذا إن الله قدر رسمي لوهله على الكبر تركن وحكم بنا من مكان phrase for asking for information ما كارت وربحين أنا هالشوك له phrase كله استعماله هي الاستعماله يعني phrase تسأله can you tell me ما إيش شيء كرتا could you tell me فضلا إيشك could you tell me إيشك هذا بقى وعصر can you tell me إيشك أو ما إيش كرتا could you tell me ما إيش كرتا هذا اللي كرتا I would like to know حنجعل لها إن أقعده I would like to know حنجعل لها بقى صدق ناس حافظ على سواء ما كان أكتر قف إنه حكتها هي كون منطقة أنا مركا أفر شان لح تدرس سدينا وحال استعمال when you are not sure ما كان هو if the other person has the information إنه حكتها هي صدق الله قفك وقتها إنه حكتها هي مركا وعلى can you tell me ما إيش كرتا could you tell me فضل ما إيش كرتا I would like to know حنجعل لها إن أقعده ساسا نقولها كون ده محاويان ما كان هذا هو بين قفك إنه حكتها هي ودي كرتا سؤال عندي كرتا do you know ما وقتها do you have any idea واحد فكرة ما كان could anyone tell me ما كوحيين قف ما إيش شيء كرا use this phrase when asking a group of people ما كوح ضمن الناس could anyone tell me قف ما إيش شيء كرا وحي would you happen to know ما لقيه ما أنا قرني السوق كلا وحا I don't suppose you would know I don't suppose you know ما لقيه أنا قرني السوق أما ديك I don't suppose you would أو كلا ديك تا مركا كواسو كلا ومركا أيضا أسلوب هاي قفك أفر شن لح يتضوى يسدد وما كان أسلوب هاي قفك واحد هذا هو بإنه يقانين كلي I was wondering وحان ريا بنا هاي أما وحان كيف كرايا ديك تروح صوصي تنوك تلفظ الدرس I'm calling وحان أصوعي تلفظ أصوعي to find out إن الأجادو وحي مركا قاب كاس أيام مركا قدرك information كلويد can you tell me could you tell me I would like to know صدق على مركا أدو وحي أكتر قفك إنه يقاني كونا ما كان قفك هذا هو بين إنه يقال do you know ما قرنيسا أما ما تقانا do you have any idea واحد فكرة ما كايستا كل anyone tell me عند ما إيش كذا ما كان تذكر بديهن would you happen to know ما لقى إنا تقانو ساسو قال I don't suppose you know أمالين ما إنا تقانو وحساس ديكتا I was wondering وحاليا بنا ما كيف فكرة هي على هذا وحنا شيء I'm calling وحنخوصه to find out إنا أولاد ما كان قصة ده okay كيف تقول حوالي 5 ways to say I don't know وعشان هب oo loo dhaho waxa ma aqaan marka dhayso sababta I have no idea wax fikrada kama haysto I have no clue wax fikrada kama haysto oo isku macno clue waxa weyn yani wax inaba yaraate fikrada kama haysto waxa dhigata I can't help you there kuma caawin karo ama ma aqaan kuma dhaamo kale informal waxa tan waa informal beats me arrinka way igu weynta caawin meesha dhana way beats me waa iga badisay ama arrinta aad oo ma aqaan way yani ma aqaan way waqacdaday beats me arrintaas waa iga weynta caawin meesha dhana way I'm not really sure runtii ma hubo alada I am wondering that too aniga arrinka waa la yaabana oo kale qof waxay I wondering waxa la yaabanayo hadas I have been wondering that too aniga xataa arrinka waa la yaabana wax aad isweydiinayso qof kale uu ku weydiiyo waxaan kala baraynaa 10 phrases 10 phrase for asking for someone's opinion ma qarto qof inaad fikradiisa weydiiso and give your opinion ee markaad fikirkaaga dhiibanayso kuwa la isticmaalo sababta what do you think about maxaad u malaynaysaa about arrinkii baad sheegaysaa marka yeah what do you think about maxaad u malaynaysaa ama maxay kula tahay oo kale how do you feel about arrinkaasay kula tahay oo kale what's your opinion of say maxay tahay fikradaada ku saabsan marka wixii baa raacinaysaa tusaale what's your opinion of the progress that country has made ka waran bal fikradaada ku saabsan wadanka horumarka uu sameeyay what are your views on maxay kula tahay fikradaada maxay tahay fikirkaaga arrintaa ku saabsan what are your views on maxay tahay aragtidaada fikradaada ku saabsan marka kuwaas oo dhan waa qaababka loo weydiiyo someone's opinion and giving your opinion kuwan dambe oo markaad adiga fikirka dhibanayso waxaad dhigataa in my opinion haddii aan ka hadla fikirkayga oo kale that is so and so waxa waa saysaa waxaad dhigataa I would say waxaan dhihi lahaa wixii baad marka sheegaysaa personally ana shakhsiyan I think waxaan u malaynayaa ama I believe waxaan rumaysnahay wixii baad dhahaysaa marka if you ask me haddaad i weydiisay wixii baad sheegaysaa marka waa qaabka fikrada u dhibaysay
the way I see it sida aniga aan u arko waa sayasa from my point of view sida aniga ay la tahay marka kuwa dhan markaad fikradaada dhibanayso ayaa lagu bilaabaa tusaale in my opinion haddaan ka hadlay fikirkayga waxaa ka dhigi karta I will say waxaan dhihi lahaa wixii baad sheegaysaa marka personally aniga shakhsiyan I think waxaan malaynayaa I believe aan rumaysnahay wixii baad sheegaysaa marka if you ask me haddaad i weydiisay waa sayasa the way I see it qaabkaan u arko waa saas from my point of view sida aniga ay la tahay marka qaabkaas ayaad marka yaad fikradaha dadka weydiin kartaa ama kuwaaga u dhiibi kartaa waxaan maraynaa 5 phrases for not having an opinion 5 hadal u sheegayso marka waxa aadan fikrad markaad wax fikrayn tusaale waxaan weydiiyay arrinkaas ay u aragtaa marka waa 5 hadal u sheegayso markaad wax fikrayn tusaale waxaad dhigtaa I have never given it much thought warniyo arrinka kama fikrinba wax badan kama fikrin I have never given it much thought niyo arrinkaas wax badan ba kama fikrin oo fikrad ba kama hayo wey waxaa kala dhigata I don't have strong feelings either way labada dhinac midna ma taageersan tusaale kan ka soo aragtaa mid baan taageer markaas waxaad I don't have strong feelings either way labada si midna dareen waxba ma si taageersan waxaad dhigi kartaa it doesn't make any difference to me waa isku kaymid it doesn't make any difference to me waa isku kaymid waxaas ka dhigsan I have no opinion wax fikrada kama haysto on the matter arrintaas marka very informal tahay oo hadalkan caadi lagu hadlo ay tahayna waxaad dhisaa whatever si kasta marka saas oo kale ayaad fikradaha yaa u muujinaysaa waayo waxaan baraynaa 10 phrases for agreeing 10 phrase oo loo isticmaalo markaa qofka wixii ku raacsan tahay markaad aad ku raacsan tahay marka waxa u horeeyo exactly baad dhahaysaa exactly qofka marka wuxuu sheegaa ku raacsan tahay absolutely kama dhibcaan oo kale that is so true waa run that's for sure waa xaqiiq I agree 100% boqolkiiba boqol baan kugu raacsanahay marka I agree markaad dhahayso I am agree hadhihin wuxuu ku yidhi avoid the common error of saying I am agree the correct phrase is I agree waan kugu raacsanahay waxaa kaloo dhigata I am in agreement haddaad I am resource in agreement no ma ka dhigaysaa waana markii ay tahay formal markay tahay luuqadda caadiga ee la qoro ama meelaha shirarka rasmiga looga hadla wey marka waxaad tidhi that's for sure taas waa xaqiiq I agree 100% boqolkiiba boqol waan kugu raacsanahay I couldn't agree with you more wartan aad baan kugu raacsanahay I couldn't agree with you more yani tan waaba isku aragti baan ka nahay wey hayo that is exactly what I think waaba sidaan u fikirahay ama sidaan ma leeyahay waxaad dhigata that exactly how I feel waaba sidaan aaminsanahay aan dareemahay informal markay tahay waxaad dhigtaa tell me about it waa kugu raacsanahay wey hadda su-aal baad moodaysaa tell me about it waa kugu raacsanahay you are telling me waa sax oo kale wey informal markay tahay I will say ana saasaan dhihi lahaa waxaa kaloo dhihi I suppose so sidaasaan filay use this phrase for weak agreement marka qofka aad waxa ugu raacsaneen ayaad dhihi karta you agree but reluctantly waad raacday laakiin xoogaa ka madax adagaysaa waxaad dhihi I suppose so sidaasaan filaya marka aad uguma raacsanid marka qaababkaasna agreementiga wey aan barano markaad qofka ku raacin phrase for disagreeing tan qofka waad khilaafaysaa waxaa rabtaa qofka inaad sheegto inaad fikrada ku raacsaneen waxaad dhihi kartaa I don't think so sidaas inay ta u malayn maayo I beg to differ waan kaa aragti duwanay wey I beg to differ waan kaa aragti duwanay waa hab marka I beg erga waan baryayaaba laakiin hadda micnaheeda waxa I beg to differ waan kaa aragti duwanay I am afraid I don't agree waan ka xumahay kuguma waafaqsan I am afraid waan ka cabsanaya I don't agree kuma raacsan aniga ma kuma raacsan oo si idab loo dhahay wey I'm not sure about that ma hubi that's not how I see it aniga saa'ila ma that is not how I see it aniga saa'ila ma not necessarily qasam ma inay sidaa tahay yes ha but alada marka loo kale waxa weeyaan qofkii wuxuu sheegay waad leedahay yes ha waa saas but laakiin marka waxaad sheegaysaa waxyaabaha uu sheegay qaybo kamid ah ayaa diidan tahay marka yes baad tidhi but wixii baad say your opinion marka fikradaadii baad sheegtay waxaad dhihi kartaa on the contrary taa cagsigeeda aaminsanahay on the contrary taa cagsigeeda ayaan aaminsanahay very informal markay tahay waxaad dhihi kartaa luuqadda caadiga dadku ay iskula hadlaan caadiga no way ka yaabinat ma aha saas very strong markay tahay I totally disagree gebi ahaanba waan kugu khilaafsanahay wey I totally disagree gebi ahaanba kugu khilaafsanahay aad iyo aad baad umahadsantiin casharada marka freskana saas noogu socon doonaan aad iyo aad loo soo akhriyo aad mahadsantiin fadlan koorsadan ku dadaal haddii aad weli nagu soo birin